magaalada muqdisho horta markii aan ka hadlayno si guud waxay lahayd xarumo waaweyn oo dalxiisa oo caalami ah oo adduunka dhan looga yimaado Soomaaliduna si gaar ah ugu dalxiisaan daljirka Dahsoon iyo Sayidka iyo Axmed Guri ee taalooyinkaas bisiixa oo taakii waxaas bismaahayn marka waxaa loo baahnaan doonaa mar kale wadanka si guud gaar ahaan magaalada muqdisho iyo xarumaha caanka ku ahayd dalxiiska ama taariikhiga ah in dib loo yagleelo oo dawladdu si gaar ah xil saarto gaar ahaan wasaaradda xil saaran arrintaas iyo wasiirka loo magacaabi doono magaalada muqdisho waa caasimadda wadanka si guud waana indhihii ummadda Soomaaliyeed iyo wadanka si guud marka waxa ay tahay in inta dib loo baaro meelihii taariikhiga oo la xadido oo magacyadooda iyo meelahay ku yiileen dib loo update gareeyo waxa laga yaabaa dadka cusub ee loo magacaabayo wasaaraddaas inay dhalinyaro iska yihiin ama aysan historyga taariikhaha ama dhacdooyinka aysan wax badan ka haynin ama aysan tixraac dadka aysan tixraac ku sameeynin taariikhaha dalka uu leeyahay iyo goobaha oo laga maarmaanka marka waxaan isleeyahay si guud horta waxa loo baahnaa doona in dib loo habeeyo xarumihii magaalada muqdisho ku yiilay oo taariikhiga ah oo la xasuusto ka bacdi waxa loo baahnaan doonaa in wasaaradda ku shaqalo arrintaas si gaar ah isaga xil saarto ay dib habeen ku sameeyso oo ay dib u maalgeliso oo dib loo qorxiyo ka bacdina waxa loo gudbi doonaa in loo sameeyo nidaam iyo maamul lagu hago xarumahaas iyo gacan ku hayntooda ka bacdina in markaas dadka loo fasaxo bulshadiisa ugu dalxiisaan ama ay soo booqdaan meelaha bulshada Soomaaliyeed sheega ka bacdina dibadda haday macquulta dadka imaanay loo furo marka ma ahan daljirka Dahsoon iyo Sayidka iyo Axmed Guri ee taalooyinkaas muuqda hadda dib loo dayactiray iyo dhagax tuur iyo meel ka istiraatiijiysan ka muhiimsan jira wadanka wuxuu lahaay hoteelada dalxiis oo lahaay wadanka wuxuu lahaa beero nasiino oo waaweyn oo lahaay wadanka wuxuu lahaa garan magaalada Muqdisho jirtiin aad u qurux badan oo dadku isku yimaadeen dhalinyaradu gaar ahaan ay ku nastaan oo jirdiino qurux badan iyo doog iyo cagaar leh oo security leh iyo safety oo maxay ahayd caafimaad leh ay lahaayeen waxay lahaayeen meelo taariikhi oo marka dib u fiiriso taariikhdaas oo dib u akhriso asleedahay magaalada Muqdisho taariikh ahaan xilligan meegaaris masaajid waaweyn ku tiilo oo taariikhi adduunka dalxiisaan loogu yimaado gaar ahaan dalalka muslimka ay yimaadeen ومسارده iyo dadka Yemeniyiinta iyo gaar ahaan dadka Iraaqiyiinta Cumaan iyo aad looga imaan jiray xilliga dawladda masaajidka Cabdicasiis oo kale masaajidka Arbaca Rukun oo kale marka fiirsid meelo weyn ahaayeen oo taariikhi sarta Sayd Barqash oo kale oo madaxda qaranka ah jirtay oo kale marka meelahaas magaalada Muqdisho marka meelo weyn ku yeelay oo markii oo dib historyga u fiirsid dadka wax ka qoran meelaha taariikhda adduunka waxaad ku arkaysid moogtahay aad u xiisaysid aad u qurux badan marka waxa leeyahay waa arintaas wax u baahan hadda ay baraarug ma baahan meesha moogtahay saldhig boolis ma saldhig ciidan ma aha waa meelo bulshada ay leedahay si guud ah ku nastaan loogu talagalo dalxiis u yimaadeen oo taariikhiya adduunku dadka Soomaaliyeed dadana hayna way imaajireen aad ugu badnaa jireen marka ciidamada waxa wanaagsan haday military yihiin in gooboodii tagaan haday boolis yihiin in saldhigyadooda tagaan ay bara control haday lahaayeen waxa loo baahan yahay ciidanka iyo meelaha bulshadu ay joogaan oo loogu talagalay in lagu nasto ama lagu dalxiiso ama taariikh ahaan loo soo booqdo shaqo isku ma laha marka ciidamada inay joogaan ma ahan aslan waa in laga qaadaa oo daljirka Dahsoon oo nadiif yahay oo sarta maxay ahayd dhagax tuur taalada dhagax tuur iyo jardiinadeeda lagu nasan karo oo Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan iyo Axmed Guri ee taalooyinkooda xawta la tagi karo oo masaajidka Arbaca Rukun iyo la tagi karo Cabdicasiis oo la tagi karo xeebta Leyda iyo dekada hore qadiimiga ah ee sarta Sayd Barqash oo la tagi karo madaxda qaranka hore iyo tiyaatarkii lagu soo dalxiisto dadka oo meel bulshada ay leedahay dhaha caasimadana meelaas marka in ciidan joogan aslan oo jagboontiya dhigtaan oo xirtaan ma baahanba waa inay moogtahay hadii xataa lagu marmarsiyo security wadanka xun iyo amnigiisa waxaas in laga fogeeyo meelahaas oo bulshada oo moogtahay ay ku nasalahaayeen oo ku nafisi lahaayeen waa in dib loo celiyaa maxay ahayd dadka memorygooda maskaxdooda si moogtahay u garaan oo dadka Soomaaliyeed oo problem ku soo daaray gaar ahaan dadka magaalada Muqdisho qas iyo dil iyo qanax iyo problem iyo waxaas wax ka soo daaleen iyo ciidan iyo qoray marka in loo diyaariyo environment wanaagsan oo ku nastaan gaar ahaan dhalinyarada da'yarta ee wax baranaya adduunka
rabaan inay tusaan muuqaal cusub ee magaalada Muqdisho ay leedahay ay meelo qurxoon in loo diyaariyay environment-gaas beecada noocaas oo dib loo habeeyo wasaaradda dalxiiska gaar ahaan jardiinadii beerihii nasiinada taalooyinkii wadooyinka qurxoonaa hoteeladii casriga ah ee waaweynaa Shabeelle iyo Jubba iyo Curubo kale oo dalxiiska loogu talagalay waxaas in dib habeen lagu sameeyo muuqaalkaasna dhow magaalada moogtahay oo wuxuu ka gudbinaa macna kale ka gudbinaya muuqaal cusub meelaas marka waxaas leeyahay si gaar in la soo xil saaro ayaa loo baahnaan doonaa shaqada loo xil saartay oo shacabkuna xil saartay Soomaaliya dawladda Soomaaliya inay ku ogtahay inay qabsadaan wasaaradda kasta moogtahay waxaan bal loo dirin haday ku mashquulsan tahay oo loo magacaabin oo aan loo xil saarin hadii wasiir kasta oo markii la magacaabo uusan aqoon shaqadiisa iyo waxa loo xil saaray waa dhibaatadeeda leedahay soo waxaan talada aan soo jeedinay waxay tahay in laga fiirsado dadka la magacaabayo wasaaradda loo dhiibayo qofkan in isleeyihiin wasiirkan isla markii la magacaabay wasaaradda in shaqadoodii qabsadaan kormeerna lagu sameeyo iyo korjoogteen in shaqadoodii hayaan iyo in wax kale ku mashquulsan yihiin waa in gaar ahaan wasaaradda dalxiiska waxa maleynaa dhowr magacay isla leedahay maleynaa wasaaradda waxa la yiraahdaa isgaarsiinta wasaaradda warfaafinta dalxiiska waxa soo marka inay ka shaqeysaa oo xarumihii dhaqanka xarumihii dalxiiska xarumihii taariikhda xarumihii waxa soo in dib loo yaqaan moogta madxafka qaranka meel wax lagu aqoonsan jiray museumka waxa soo shaqadoodii waa marka waxa soo inay dib u howlgeliyaan waay dhaqaalaha ugu badanna ay dawladda soo galiyaan waa iyo budgetka bankiga dhexe laga dhaqaaqood ma ahan inay yiraahdaan budget wasaaradda loo sameeyo ayagoo intaas oo hotel ayagoo intaas soo jirtiin ayagoo intaas oo beero oo lagu dalxiis karo ayagoo intaas oo museum iyo meel la daawado ah intaas oo taalooyin oo casri oo taariikhi waddanka ay ku yaaleen gaar ahaan magaalada Muqdisho kaliya hadii si fiican u howlgeliyaan xarumahooda wasaaradda ugu dakhliga badan noqdo wasaaradda dakhliga ugu badan soo xareynaysa ay kamid noqoneen marka waxaan isleeyahay arintaas waa in wasiirka iyo wasaaradaha hawshaas xil saarnaan doonaan iskaar soo xil saaran lagu xisaabtamo waxaan isleeyahay wax fudud oo simple ma ogtahay ayaga hadii markuu kubada xataa maalgelin iyo qarash u haynin waxaa jira kambaniyada waaweyn oo adduunka oo ka shaqeeya ama dib u howlgeliya meelaha taariikhiga oo dib u dayactira oo repair ku sameeyo oo dheeladooda iyo wax kasta qalabay kara markaas ka bacdina wasaaradda ku wareejin kara si lacagta tartiib iska soo celiyaan iyo kana howlgeliyaan waxaas leeyahay hawshaas oo hawl fudud maantana loo baahan yahay xilligan hadda la maray magaalada Muqdisho soo kabanayso oo soo qurxoonanayso waxay u baahan tahay meelihii lagu yaqiinay oo caanka ku ahayd inay dib u soo kabtaan